aad iyo aad baan uga xumahay ninka la yiraahdo Axmed Madoobe wuxuu u shaqeeyaa haddaad moodeen midabka Soomaali as uu egyahay Kenya u shaqeeyaa shalay Ethiopia u shaqeynay Tigray u shaqeynay waliba Tigray maanta meeshii waa ka baxday wuxuu u shaqeeyaa maanta Uhuru Kenyatta iyo badii madaxweyne Xasan Sheekh oo adiga dacwadeeda badda aad geys ayuu difaacayaa oo rabaa Kenya inuu gacan ku siiyo waxayna waxa Soomaaliya ay Kenya ku garaacaysa ay rabtaa Axmed Madoobe inay ka dhigto idinka marka ma ushiba taageeraysiin ushi Kenya haddaad Kenya taageeraysaan si bareer u taageer ala badda geey dacwadeeda qalad inaad ku geyso qiro saxaafadda isugu yeer haddii kale Kenya hanoo lagu qabaninaha oo Axmed Madoobe inay nagu garaacda rabtay ka leexda madaxweyneyaalkayni sharafta lahaay qiimaha badnaayatiin ka leexda shirki jiraa'idood qabanaysiin Soomaaliya waa idin fiirsanaysaa ma Axmed Madoobe doorasho keenaysaa xisbiyaalaad madax u tihiin waa Axmed oo qof ah iyo shacabka Soomaaliyeed oo jubba degan kuma aad cod ka rabtaa adiga waxaad cod ka rabtaa shacab haddaadna cod rabin berrina aadna raalli ku noqon doonin doorashada Axmed Madoobe uu sameeyo kale haddii farmaajo iyo khayra ay sameeyaan aadna raalli ku noqon doonin anigu hashimaankayga gaday masaar bay laqday iga taaganta waa garan laahay runtii waxay dhaheen dagaalka Sheekh Shariif wuxuu yiri dagaalka wuxuu ka soo bilowday gudoomiye Jawaari uu ka soo bilowday uu yiri riditaankiisa war gudoomiye Jawaari xildhibaanad doortay xildhibaanadii doortay ana xilka ka qaaday ana ka mid ah dadka xilka ka qaaday afar bilood ah mooshinkiisa dhabarka uu ii saaray gudoon kale aan dooranay ha aflagaadeynina gudoonkii kale oo aan dooranay cayninaha aflagaadeynina madaxdayna aatiin madaxdii dalka soo martay aatiin baarlamaanka nuxurkaas ka dhintay Jawaari gadaashiisa leedii macnaha gudoomiye Muuday iyo gudoomiye Mursal iyo dadkaas oo dhan waxba kama jiraan way macnaha yaan loo gafi madaxda idinka baladii ma gafi jirin ha u gafina ugu dambeyn waxaan ku soo koobayaa hadalkayga dawladdan maanta jirta ma diyaar uma aha in dawlad muxuu ahay dawladda goboleedyo dad shisheeya gadaal ay ka kaabayiin inay dib dabbo ay lagu qabatayso oo ay dibindaabi ugu samayso dawladda Soomaaliyeed qayrana uu iska baxa farmaajina uu iska baxaya mas'uuliyiinta kale oo iimaanaysa waxay rabaan juhdiga maanta la geliyay inay biri dawladdeena ay ku raaxaysato halka shay oo aan ku soo gabagabaynayo waxa weeye waxaan maqlay inaad bixi rabtiin oo aad Kenya ku laaban rabtiin oo aad muxuu ahay tahriib in soo gashiin aad rabtiin oo helicopteradii Kenya ciidankii muxuu ahay Kenya inay idin soo qaadaan aad rabtiin walaalayaal oo mas'uuliyiin qaran baatii sharafta dalkaad qayb ka leedihiin tahriib ha gelina sharci darrana ha u gelina tahriib ha u gelina sharci darra tahriib inaad Kenya ay idin soo qaado oo idinkoo dhahay dawladayna eelaboorka noo diiday diyaaradii qaadan lahayd nooladiida helicopter nagu qaad inaad tiraahdin sharaf dhac idinka weyn ma lahaanaysa arrintaas aad macsantihiin aan maqalnay taageerayaashiina aan ka soo xignay xildhibaanada oo muxuu ahay xisbiyada idinku jiro ayaan ka soo xignay walaalayaal ha sameynina taas aniga gacantiina lee walaalkiina nahay anigu gacantiina lee sharaftiina jeclahay ha sameynina taa Axmed Madoobe waa la soo qabanayaa dhiigiisa Rashid Dhur iyo dhiigii suldaankii Jareer Weyne iyo ninka hadda oo meydka ay ugu tageen oo isbedel doonka ay isbitaalkan jiifo waa loo maxkamadeynaa waa huba my dream riyadaydu waa maalin in loo maxkamadeeyo